بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسود هذا وررتنا ما أنتوا حاتوا دابون دوتين وررتي قدام بيسي تبدأ جدا ودن تصدقات جارهان ودن كيوكي أما ودن كإنجليزيا وسنا ولسه على ودن إنجليزيا ودن عالمية وأنت سكمنان كن أو عالم كمرتجلية أو قحوتية مرشستنا إن ودن مذيس ودن إنجليزيا وها شرع الدرب ولا أنت سكمنان كن أو قحوتية balse ugu dambeyn sanadkan haddaan ku jiro 2022 bishii koowaad dadkii soo galay qaxootiga oo isku dhiibay wadankaas oo si sharci darro ku galay ilaa iyo maanta oo taariikh December dawladdu waxay ku dhawaaqday in ay celinayso taxaabayso wadanka Rwanda wadanka Rwanda in loo taxaabi doono oo meeshas lagu baari doono tuskooda meeshas lagu qaabil doono meeshas dhaqaale lagu siin doono dhammaan sidaas ayaa horaan balaqaatay laakiin balse dadweyne ayaa horaan kaceen dadkii oo ku noolay oo shacabkii ama dadkii ku noolay wadanka Mareykanka oo xaqoodu lahaa shacbiyadii ayaa kaceen dhammaan mudaharaad ayay sameeyeen balse kiiska ayaa loo diray maxkamadda ayaa loo diray ugu dambeyn maanta maxkamadda ayaa soo jawaabtay waxayna ku soo jawaabtay maxkamadda Ingiriiska in ay tahay sharci in dhammaan dadkii sharci darada ku soo galay wadanka Ingiriiska laga soo bilaabo sanadka cusub ay 2022 bishii koowaad 2022 ilaa hadda wixii sharci darro soo galay in loo taxaawi doono wadanka Rwanda in la geyn doono oo sidaas meesha lagu qaabil doono ayay ku dhawaaqday wadanka Rwanda qodobka labaadna ee maanta maxkamadda soo saartay waxay ahayd wixii ka sii horeeyay ee 2021 iyo wixii ka sii horeeyay dhammaantood ayagana waxay dhahday in la qaabil doono ay u dhowdahay isbuucyada soo socda ilaa ay bisha koowaad January ilaa ay February gaar doonta cases faylashooda ayaa la furi doonaa ayagana waxay u dhowdahay in hal waar loo gaaro oo la aqbalo maadaama horaan ay dawladda ay sheegeen in la celinayo laakiin balse ayagana caseskooda waa la baari doonaa marka dawladdan waxay dhahday way qaabil doontaa sida hadda u badan tahay waana war aad u farxad badan oo dad badan oo cabsi ku jirtay oo wadanka Ingiriiska 2021 dad waxaa jira 20 sano isla jooga wadanka Ingiriiska cabsi badan ayaa lagu muujinaya maxkamadda balse maxkamadda oo kaliya waxay ku dhawaaqday dadkii hadda sanadkan haddaan ku jirno oo dhamaanayo bisheeda koowaad 2022 January ilaa iyo December lagu jiro wixii qaxootinimo oo soo galay sharci darro ku soo galay wadankaas waxayna ka yimaadaan dhinaca xuduudda dhinaca wadanka Faransiiska ay soo galaan doomo ay wataan ay soo galaan balse dawladda ayaa hadda gadaal dambe bishii 12aad ilaa iyo bishii 10aad soo bilaab ilaa iyo bishan December ku jirno xuduudii dhamaan way adkaysay laakiin balse dadkii horaan ku jiray qaxootinimada isku dhiibay dhammaantooda oo sanadkan haddaan ku jiro 2022 in la soo qaadi doono wadanka Rwanda ayaa la keen doonaa marka sidaas ayaa jirta waana war aad u xun marka insha Allah waxaan ka hadli doonaa wararka kale oo xiisaha leh qaxootiga iyo arrimaha boofista insha Allah waan soo badin doonaa warar badan ayaa niga haya dad badan ayaa idheer wadanka Uganda ka soo hadla wadanka Ethiopia iyo insha Allah wadanka Australia dhammaan warbixino aad u fiican ayaa niga haya insha Allah muuqaalada dambe ayaan ka soo sameyn doonaa insha Allah bariyahan mashquul ayaan galay bal insha Allah waan dadaali doonaa dhammaan asxaabta waxaan iga codsanayaa haddii intan ay soo gaartay muuqaalka ugu sharfa like no saar like badan ayaa rabaa mid kale subscribe ayaa rabaa haddii aad saarin 5,000 oo subscribe ayaa rabaa ka badan ay gaarsiisin ila shaqeeya muuqaalkan shay gare dad badan u dira asxaabtiin u dira subscribe saar dheh walaalkeen Maxamed Daacad waa loo kala kiciidha haddii inta soo gaartay waana mahadsantiin asxaabta dhammaan ku xiran insha Allah waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq